Halkani waa Gaacir Media Tube. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan. Waxaan mar walba halkan idinkaga soo gudbinaa barnaamijka wixii cusub ee aad kala socotaan Gaacir Media Tube, kaasoo idinkugu soo gudbino arrimo aad u xiiso leh. Barnaamijka wixii cusub waa barnaamij aan idinkugu soo gudbino wararka hortabinta leh ee bulshada xiisaha u leh, kuwaas oo ay ka mid yihiin haddii ay noqoto siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, difaaca, sayniska, teknoolojiyadda iyo wixii la mid ah. Jaamacadaha Nigeria xadgudubyada jinsiga ku saleysan ee ka dhex jira aad baan ugu xunahay. Waxaa sidaas yiri madaxweynaha Nigeria Mr. Muhammad Buhari. Dowladda Nigeria dhibka ka dhex jira jaamacadaha inay wax ka qaban weyday dhaliil oranaysa ayaa loo soo jeediyay. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, ku soo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media Tube ee aad kala socotaan mar walba Gaacir Media Tube. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, inta aanan u guda galin warbixintaas oo dhammaystiran, fadlan subscribe, share, like, follow dhaha page-ka iyo channel-ka Gaacir Media Tube ee aan ku kala leenahay Facebook iyo YouTube-ka. Ku soo dhawaada barnaamijka. Madaxweyne Buhari ayaa sheegay jaamacadaha Nigeria musuqmaasuqyada ay galaan midka ugu weyn inuu yahay xadgudubyada jinsiga ku saleysan. Madaxweyne Buhari ee Nigeria taariikh 5 bisha 10aad 2022 mar uu warbaahinta la hadlayay ayuu sheegay in jaamacadaha dalkiisa Nigeria dhibaatada xadgudubka jinsiga ku saleysan ee ka dhex jira inay gaareen heerkii ugu xumeed. Warbaahinta Reuters ayaa daawacday in madaxweyne Buhari uu yiri jaamacadaha Nigeria inay ka dhex jiraan ficilka galmada lagu bedelanayo dhibcaha ama lagu helayo dhibcaha in ay ka mid tahay qaybaha musuqa ee ka jira jaamacadaha dalkiisa. Waxaa xusid mudan in sanadka 2019 warbaahinta BBC-da warbixin baaritaan oo ay ku sameysay 2 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha dalka Nigeria inay ku ogaatay oo ay ku soo bandhigtay in jaamacadahani uu ka jiro xadgudubyada jinsiga ku saleysan, taasoo markii dambena Nigeria ka dhex abuurtay dood la xiriirta galmo lagu helayo dhibco, micnihii ardayda imtixaanka si ay ugu baasaan in ay galmo sameeyaan. Dood fikir ayaa ka dhashay halkaasi. Xilligaa kadib wax isbedel inuu jirin oo arrimahan waxba laga qaban dhaliil ayaa dowladda Nigeria loo soo jeediyay. Ha ahaatee, madaxweyne Buhari shir lagu qabtay Abuja oo looga hadlayay la dagaalanka musuqmaasuqa ayuu ka sheegay in dowladda ay aad uga xun tahay arrimaha xadgudubyada jinsiga ku saleysan ee ka dhex jira jaamacadaha dalkiisa. Madaxweyne Buhari laakiin guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa Nigeria ayaa dhinacooga sheegay in ay dacwad ku soo oogayaan jaamacadaha falka xadgudubyada jinsiga ku saleysan sameeyay. Madaxweyne Buhari laakiin muusan sheegin inta qof oo dacwad lagu soo oogayo. Sidoo kale madaxweyne Buhari ayaa yidhi ardaydu waxay sheegayaan noocyada musuqmaasuqa ee kala duwan ee ka dhex jira laamaha kala duwan ee jaamacadaha. Sidoo kale madaxweyne Buhari oo hadalka sii wata ayaa yiri dhibaatooyin kale ee jaamacadaha ka dhex jira waxaa ka mid ah in dhibco aad u heshid ama aad u baastid waa inaad laaluush bixisaa ama galmo aad samaysid. Sidoo kale jaamacadaha inay ka dhex jiraan ayuu madaxweynaha sheegay imtixaanka oo la xado. Haddaba madaxweyne Buhari Nigeria ayaa sheegay musuqmaasuqyada laga dhex sameeyo gudaha jaamacadaha Nigeria midka ugu weyn inuu yahay musuqa la xiriira xadgudubyada jinsiga ku saleysan ee sida galmada lagu bedesho dhibco. Waa sida uu hadalka u dhigay. Jaamacadaha dowladda Nigeria macallimiinta dhiga ayaa muddo 7 bilood waxay ku jiraan kacdoon shaqo joojin iyagoo ku andacoonaya in dowladda mushaar kordhin u sameyso. Haddaba madaxweyne Buhari oo su'aashan ka jawaabaya ayaa sheegay in macallimiinta sabab la'aanta u joojiyay nidaamkii barasho in ay dhaawacayso maalgelinta ay dowladda ku sameyso waxbarashada. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaa waxaa inaga eg barnaamijka wixii cusub ee falanqaynta wararka ee aad kala socoteen Gaacir Media Tube. Barnaamijka kan xiga intaan ku kulmi doono nabadgeno.